bartay baan ahay si professional wax u arustayna inamadan yaryar ee maartay wixii doona lagu hawlgeliyo iska gebgeblay anigu maahay walaalo qof kala miirano wax bartay baan ahay soo waxaad garatay maaha si aqoon-yahan wax u arusaday cadaalad ma doonaya garsoorka in la horgeeyo oo la sukayo dhageysto oo waliba la wada daawado jujuub dambe dooni maayo in la iga hor istaago dooni maayo in la awood sheegto bal qof kuraanaha baan rabaa inaan imaado aad baafinayso macnaheedu maxay ka tahay oo baafintii link Facebook link alla ii soo diraya maxkamadda ay soo dirays warqadaha igina dadkay u dirtaa forward igu soo diraya xasbaxay taa walaal dawladnimada soo aflagaada maaha nana ceeb nagu ahayn cadaalad bas rabaa igala shaqeynaan maxkamadda tago in sheeg hadda maxaan qabtaa pointi kood sheeg maxaa hadda qabtaa shaqada u horeysa ku qabana maxay tahay iskaygu soo xir ya ana farta ka saaraysa saraakiisha ila hadlaysa booliska dawladda isku wareeraysin waxaan rabaa waxa aragtay sector shacabku ha ogaadaan in sheeg maxaa rabtaa inaan qabto ya waxaan rabaa dadka eedeynayana in la hor keeno Soomaali isu kaaya daawato cadaalad halka laga noqo dhageysiga galnuqul dacwadeedkeena ahaada maqal iyo muuqaal aanan la idulmiyin oo la ii awood sheegan oo procedure-kii dawliga ahaa ee dacwaduhu iyo sharcigu lahaayeen la imarsiiyo xaq baan u leeyahay ka muwaadin ahaan baan xaq u leeyahay wax kale ma rabo hal mar sug 1 minute aya meesha aan ka raacay ayaan dib u fiirinayaa su'aal mar meesha aan ka raacay ayaan fiirinayaa hal mar 1 minute sheekada meesha aan ka raacay ayaan fiirinayaa okay bismillahir rahmanir rahim okay abiyo kasoo okay kasoo okay meeshan ka hadlaa waqtina hadaba gabar dhiman rabto oo fariin u soo dirtay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed farinteeda aqso cali almuumina soo galiyay anigoo ah Xaliime Axmed Yuusuf waxaan dawladda Soomaaliyeed ee shacabkaba oo cadeynaya in naftayda ay halis ku jirto haddaan dhinto iyo haddii la waayaba waxa sababteeda leh oo wax laga weydiinayaa shakhsiyaadka hoos ku cad xafiiska xiraalinta xiraaliye Yaxye Saciid qadar Saciid Cabdi garsoore Cabdirasaaq Aadan Shukri garsoore Xuseen Xasan Cali Cabdullaahi Xasan Cali Madoobe محمد عبد الله الشيخ نور باشالو تريا أبشر عبد حقلي قودن كرانيا وديغلي بارها وديغلي آذان داري أوكي فجأة صورنا ما استشقينا يودو وحنا تقول شوية صناح ومنك تسبوس كيجا مركان حير بكذا هرتي كعديسن قيب كمد احنا هنتي أو عن إسقان ويني أيال يقصوا كيس بين أورا anigoo aan la isoo wicin ayaa gurigeyga la tagay waaran la'aan waxa lagu qaatay dhammaan hantideedii dukumeentiyadii iyo gaadidkeygii xiraalinta iyo maxkamaddii aan anigu lugahayga ku doontay ayaa laga soo hor kaxaystay waliba sifo sharci darro ah 5 maalmood baan ku xirnaa xadhiga oo dhiglay oo aan kala kulmay tacadiye ka dhana xuquuqda aadanaha damaanad iyo lacag $5,000 ayaa la igu soo daayay xiraalinta kiiska waa gudbisay laakiin waxa loo mudeyn waayay dadkii dibka sheeganayay oo maqan aawadood okay iyagiyo maqan qareenka iyo aniga iyo adeer oo damiin ah oo aan la soo wicin ayaa damaanad looga noqday codsi ka yimid xiraaliye Yaxye hantidii hore ee iga maqan ayaa markale gurigeyga cusbaa isla farsamadii markale anigan la isoo wicin saldhigga wadhigley iyo Cabdidaahir oo ah shakhsiga loo adeegsanayo gurigeyga galeen garsoore cusub ayaa kiiska lagu qoray waxaan laga saaray warqadii damaanadka noqoshada waxaana sida lagu mudeeyay dacwadii shalay oo taariikhdu ahay 13 Oktoobar waxa ay soo wacay qareenkayga oo igu amray inaanan imaanin sababtuna waxay ahayd Yaxye Saciid ayaa yiraahday timaado waan xirayaa okay adeerkayga damaanadda laga noqday laga haysto lacag ayaa la xiray waxaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka ka codsanayaa in kiiskan baaritaan dhab ah lagu sameeyo cadaaladda la waafajiyo
shakhsiyaadka ku tagrifalaya awoodda ciidan cadaaladda iyo garsoorka fiiro gaar ah gabadh dhibana ah ayaa nala wadaagtay qoraalkan ayuu yiri Cali Aadan Muumin marka security issue waa jira walaal xamar baan joognaa xamar maxaa laga haystaa de walaal horta aniga waxa laga haystaa wixii aan isku haysanay waxbay baa ahaayeen oo meel iska dhigay waaba dhul moogta waxaan isku haysanay oo dhulka aniga halkan igama saarna moogta maxaa lagu eeday waxaa lagu eegaday 3 qodob waxaa lagu yiri maxay ahayd burburin hanti يعني waxaa laga dhigay inaan weerar intaan qaaday guri galay oo burburiyo waxa document ka soo qaatay distitis anyway waxaa lagu weeday isku daydil attempt of murder very serious allegation waxaa lagu eedeeyay maartay destruction of public property inaan hanti dadweynaha anigu baabiyay iyo waxaa lagu eedeeyay tahdiid oo maxaan ku raday sheegan maxaan ku raday sheeg harassment okay haddana waxaa la ii daba raacay hadeerto waxay u tagtaa wixii gaagaabnaa ee duurka ku jiray mafahmaysa laakiin de caddaymahayga oo dhan baan haystaa all I am asking waa due procedure haddaad wax isku hubto waadna eedaynaysaa waadna hortaagna maxaad iigu horday gurigayga maxaa kaa jira garbaabaad leedahay saad sheeganaysee kayga gurigayga labaad maxaa kaa jira garbaabaad leedahay saad sheeganaysee maxaa shaqadayda kaa jira anaaba diyaar raba inaan kaa garbaxa maatimaadi يا دعوة قبا ورانا وحي دعوة قبنا هذا يكانوا قف كلنا يعني سهور استاجين قف كي دعوة قبو إمو ده نقصوره ويسوك هيدا جيسو حيرلاري والدفاع لوير كيجوان وطا ديو بروسيجر وحنا هين أنا وصومالي يا محمد كل الدولة الفدرالية كذا كبري معي حق ما هين أنا فيري محكمة قبل كبنادر أنا إيش قصوره كشقية معها إنه أنا جيس يجوه استاجو مشاريع دي دمت قرن كوكوجرتين ولا national level معها معها just because I am a woman إنه سيدو دونا يقول تعديه معها because we have a family issue in a family issue yes لكن family issue مع هديد الأولى ما أدو دولة بعتها أدو رقم متهيد أدو مساجد متهيد أدو دولة بعتها شرعي بتكون رقم مسا هديد ليس سوق العنوان اللي يقول الشرعي عن كوكان ده شرعي ده كهو كراهين أو كراهين شرعي كوكان رقم عدالة فل إلهي جنا كبق ساسا صحورا again and again due procedure حليمو يمس حليمو إن محن كذا يشاق وإن لقب بحي أجر صدق ورديق لهراسمنت بدن أو يقول هيان أوجد بيحران أنت ويوجهين يجا وحي كلين عبد الله مدوبة الصباب قول جاء إن الرفتو شقنا كمل هنا هبل قدرت هذا كونه قاف عضا فهم إيش marka waxa la rabaa meeshaan habar gidirna ma taalo jinina ma laayal jaanna ma yaala qabiilna ma yaale qoysna ma yaala walaalo waxa yaala sharci baa yaala hadii lagu yimaado waa dadka sharciga ku maamushaa waalidku mar buu gardaran yahay waalidku mar buu xun yahay waalidku mar buu daran yahay maxaa procedure inoo yaala inaga marka hadii xaalad saas ay timaado ma la isku tumanaya okay way بريتي محلف يعني مو والشعب شو جدا حليمة هالمر دايرو انت سنبحن حليمة وحن دوني انا الله هدلو حرر عليها قبل كدعوي كتاهي واسفهمي ويسين مركا كوات تاسو حاكمكو كهور تاقيه اني عدالة هشو او كيس كيدو او فور كدقو haddaan qaldana xaliim waa qaba kartaa ha ma sugsu xaliim boontiyadan qortaa ku sheegaya boontiyadan ku charge-ku ka hor istaagay haddaan fahmay charge-kana wuxuu diidan yahay asaa u diidan kiiskaada inuu farageliyo oo xaakimku uu qaado warrantigaadii oo lagu soo xiray kaabilga ama siin waa qoray false allegation oo bogus ah waa lagu soo eedeeyay oo maxaa la dhahay thorough investigation u baahan tahay oo daahir cali soo ka qayb gala ama public laga dhiga maxkamadda attempted murder are charge they have to prove about that destroying property charge gaada waaye saldhig wardigley oo and harassment yeah thank you and waa hilmaama qodobka kale yes waxa kale saldhig wardigley oo ka hiilinayo oo injustice yani oo ka soo horjeeda against you oo in laga bedelo districtigaas يعني أنا بوينتي أنت عشان كفهمي but I'm sorry حليمة إمو tomorrow أو سوق قرب دايرو أديك أنا حلقة ربع قبل أن كيس
ina public yes publicity ina ka dhigtay publicity waayo dawladda way qarinaysaa hoos ay gelinaysaa waa in toosh lagu shidaa indhaha caalamka intaas saasa u fahmay ilma yar baan haystaa hooyaan ahay daruufaha qaar ma ogtahay ilaahay ma kalifin 9 months bella hadal bella qaado marka let her finish ina fitina public ka dhigha cadeymaha bella hal erey kaliya dhahay intaad qabsan qara la ku all right one second kaliya thank you bella and waxaan rabi lahaa gabadhan keeskeedana in lagu daro in keeskaas live tv-ga la keeno muqdisho marka laga sameynayo in shacabkii arkaan kees kaamirooyinka loo ogol yahay si ummadoo dhan u aragto taasna maxkamadda man like if it listen you guys Somalia is different haddii gabadhan oo xalin karo oo ayadana dhibaato iyo buuqna ku fureynin Halima aniga wallahi I'm proud of you and you're like a motivation for us girls or that are afraid to go back home. I'm so scared. I just got anxiety. I will lie because I want to go and I'm not but my anxiety was so high. I'm like sweating. It's sweating from my palms. Wallahi, I need them. I'm like, damn. But like in Abba, I believe Somalia works differently. I want safety is important. Madam, what the can it's not 100%. You know, for what do you call it? That it's a man. Marka ani waxa ku dilaha hadii waxa lagu xalin karo. Oh, until the day that path opens where we can like publicly go straight forward with what's right and what's wrong. Excuse me, Bella. Yeah. No. Bella. I'll give it to you. I promise, Mohammed Daoud. Aniga abay wallahi from a word of advice. Aniga ina la tiaraba inshallah amri dari afimad. This is shaky. Wow, waxyaalo badan oo micnaha de aakhirkii gabdho badan aan ku weynay ma fahantay oo very intelligent just like you. I understand what's right is right, what's wrong is wrong. Like in situations like this, I have anxiety. I am proud of you. Laakiin abaayo hadii waxaada lagu xalin karo oo nimankan hadda meeshan the power waxay kugu subiyaan it's crazy. Ma fahantay lama xishoonayo ma gambanoyaan hatta dumarnimo hatta kuma like you know naxariisanayaan marka I want you ina akino lati hadii lagu xalin karo another way take it says period wallahi abayo horta mid jirta by the way I appreciate thank you very much abayo waxa jirta you know the thing is if there is something Halima falanqa la yira falanqo anaga iskala adigu waad soo gudbisay anaga iskala marka Halimo yes adeer anigu waxaan nin adeerkaya Maxamed Daawud la yira adeer I'm sorry aad baan ugu xumahay waxa kugu dhacay waxa kugu dhacay aad baan ugu xumahay justice ayaa ku soo food saartay manage power ayaa ku helay alxamdulillah alladhi an'ama alayna wa adana lil islam inaan nooshahay maanta oo yaani naftaada ay aad spoken noqotay oo hadli kartid وكحما والله I'm shaky like Bella said before. What you are suffering from without due process and procedure. That's what if I'm right, you know what I'm saying it. So waxa u baahan tahay nafsadaada ka taxadar ha qarinin buug qor meel magaciisiyay safaaradaada u dacwo waa ku taaganahay waa mudaharaadayna time is up movement iyo maxaladaha adaa hal bid qudar waxaan rabaa Halimo had inta waa la duubaya barnaamijkan waxaan rabaa dad hadda safety-ga uga baqayso haday jiraan magacyadooda sheeg si on a public record u noqoto haday wax kugu dhacaan dadka aad tuhunsan tahay no don't do it oh my god look how nuts case kala ma furin in case something happens to her like we need to know you know who's on her case. She has a right to she has a right to deliver to us, you know, and to let us know because they are they must be respondent. marka wax magacyo noo sheeg walaal dadka aad hadda nafsadaada safety ahaan haday jirto dad no names aadana baxran garaneen ragga igu daran inta liiska ku qoran bay ahaayeen ragga igu daran baan laakiin ku sheegaya waan liiska ku qornayn abtiyaashay hooyada horta aan ku sheegay waa
hooyo iyo ku aabbo waana curidooda hooyaday iyadaana maaragtay dee wax wada tartay saan kuu sheegaba abtiga cabdi daahir cabdi cali daahir cabdi iyo xasan daahir cabdi iyo wiilasha ay dhaleen intaas reer daahir cabdi raggooda iyo waxa ay dhaleenba walaalo lafaygan uga baqaya been ku sheegnay they have tried so many attempts oo halis igelisay maxaan ku dhadaa ii sheeg waxaa badan oo qoysimaan uga amsahay saddexdan nisaas ay galeen iyagana dadkan kale wada cali cabdi daahir cabdi cali daahir cabdi midka saddexaadna magaciis waa qoraya xasan daahir cabdi marka cali daahir cabdi waa from London UK wuxuu degan yahay Hounslow waxayna saaxiib yihiin oo igu awood sheegana aan tafa waxaa sadaq u ah oo gabadhiisa qabaa odaygii wasiirkii hore maxaan ku dhahdaa wasiir ku-xigeenkii hore maaliyadda ganacsiga qalluucu cabdullaahi qalluucu ayuu gabadhiisa qabaa liban qalluucu oo ingiriiska la degan cabdi daahir cabdina wuxuu qabaa allaha u naxariistay cabdullaahi xirsi yamyam gabadhu adeer u yahay oo la yidhaahdo safiyo qoraxoo mareexaana waa reer Finland Helsinki buu degan yahay xaaskiisa iyo carruurtiisa halkaasay joogaan isaguna muddo hadda 10 sanadood ah 11 sanadood halkan uu degan yahay oo deegaan ku yahay faqashinina yay ka yihiin faqashini waa abtiyaasha la xameeyo ma hooyada la dhashay hooyada waa ku hooyo ku aababa ku leeyahay ha haray waa garta ku soo waxay faqashini weeye reer la yiraahdo ka dhasheen taas ahaan waxaa la yiraahdaa ay sheegaan fiqi aadan Cabdalle ayay ka dhasheen aga sheego raaxa markii hore dadka qaar kaaga waxa laga yaabaa inaad garanaysan Xuseen Traafiko reer Lugeeye waxa kale faqashini waxay ka yihiin faq Cabdalle ayaa tiri Cabdalle fiqi Yunus baa la isku yiraahdaa iyaga thank you Cabdalle fiqi Yunus waxay ka sii yihiin fiqi aadan waa garta waa maadsanta horta aayad quraan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegayaa hadii dad ay dad ka dacwoodaan ama case lagu keeno fatabayanu hala soo hubsado arintan inta allegation aan noo sheegtay ma dhahayno waa run waa been ma dhahayno hubin maxkamadda waxay u diraysaa team soo hubin doona arrimahan oo dhan dhexgeli doona baaritaan ku sameyn doona dadka kale oo aad magacyadooda meesha ku sheegtay oo la eedeeyana xaq iyo xuquuq ay leeyihiin ayagana waa fursad waxaan siinaynaa ay maxkamadda ku imaadaan ay xaqooda ku sheegtaan oo su'aalo maxkamadda ay weydiiso maxkamadan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa u dhaxaysaa cadaaladdan waxay ku jirtaa labada darafba in la dhageysto marka insha Allah darafka dambena inaan waxa rabnaa codkaan uu gaari doona dadkaas magacyadooda ay sheegtay aad ka dacwoonaysid abtiyaasha ah ayagana inay maxkamadda imaadaan insha Allah So basically we're family gather Halimo this is your family that's doing this to you the issue is the problem is like everyone keep on saying this is your family okay I understood they are my family okay family man eating because عوضا عن كل واحد لاي ده على اساس ما هلكاس بوح والله يبلي هلكاس بوح نيك اللي راد عبد الناصر حاجه قرون لكن قفكم marka laga qabtay xeer baa jira dadku waa isxishmeeyaa Soomaa caawadaas reerabtay halka dhigi kara aniga waxa aan ka yaabanahay waa systemkeena nidaam walaalow aniga Geneva ka imaad aqoon aan leeyahay saddex luqadood aan ku hadlaa waa isdifaaci karaa majuuraan ahay hooyo dhaqantayaan ahay qof isku filan aan ahay qof imagine happens to small girls imagine this happening to people that cannot defend themselves okay I understand what has done but like why what is the conflict between you and your family it's based on land hooyadaan ku jirta case hooyo la jirta property say property lagu haystaa beero laba beerood hooyo ma abtiyaasha ay la safantahay mis adiga okay I get it now hooyadeed iyo ayada bis baa side inti kalena side weeye miyaadan fahmaynin caawadan gabadhu waxay ka hadlaysay ma sha Allah gureenayna annaga xoolaheena waa ما فهمت أنا قاعد بلعت كتالو أنا كلا قرن من أنا قاعد أفعل وحلي يقول حيبقى قار عن كيابي أيدي بقى أدو بوشكرين يسي being old person or the sky من سن يعني ما كان this is مقطع you cannot complain about that مقطع certain things مقطع مركا ما أنا بقول ده حنقول you know what أيوة وقف وين mentality 1930s كي إسكا هاي stop taking advantage of this old woman سبحان الله يا أخي ها حشانه
maxaa anaga xoolihiin daba dhigay maxaa liigu jawaabay ma taqaanaa waxa aad anaga nagala ordayso ee aad anaga noo diidayso gabadha yar ee dhulbahantaa iyo reerkooda u wadaa un soo maaha gabadha dhulbahantaa anaa dhalay xoogahaygan anaa shaqaystay yes what naftayda anaa iskale hooyadayna xoolaheeda anaa iskale walaalkay xoolihiisa anaa iskale xoolahayga iyaga iskale who are you to judge who are you to plan for others ilmaha iyaga anagaa dhalnay haddaanu yar yahay haddaanu badannahay hadday nagu badan tahay hantiduba de xisaabiye guud nooma tidin adeer mushaarna kuguma sina inaad annaga hantideeda noo xisaabto waxaanu ku tari karina waanu ku tarnay waalidnimo ku tarnay walaalnimo ku tarnay wanaag dhowrnay hagaag dhowrnay dhaqan dhowrnay akhlaaq dhowrnay ixtiraam dhowrnay guryaha iyaga iyo goorgaradaha iyagii baa naloogu yimi naftayadii baa naloogu yimi inantayada siddeed jirka iskuulkeeda maxaa ka dhexeeya iftiinka hawday waad hadashay intaad hadli karto adeer macaan waad hadashay nasii nambarkaada oo nasii follow backna inta meesha tan saaran si aan kaaga war hayno annagu waxaan doonaynaa haddii wax yar ku gaaraan yacni taadiya gashay inaan kabacdi aan maxaa la yidhaha lagu wada xisaabtamo caawa digniin baanu ka diraynaa halkaa absolutely Somali Maxamed iftiin adinkay magan idinta cadaalad darro ayay ka cabanaysaa oo from systemka loo isticmaalay Iftiin, by the way, I'm a criminologist. Marka I teach here at university in Makkah. Criminology marka waxyaalaha hadda xaaladda ii sheegtay adiga waxa u baahan tahay iftiin wax yar dhageyso. She's been set it up. waxa u baahan tahay aadan kala hela adiga iftiin kala hela midkiin ha qaato raacsato hal qodob aan kugu daraa amaankayga kaliya maaha waxaan idin kala dardaarmayaa walaalayaalow aniga horta mid ila fahma dadkii dad ii xigay ee aan u heelanaa caawan haday wax igu yimaadaan aan ku baxsan lahaa ayaa sidan ii galay magaalada iyaga dad iigu xiga saan idin sheegana xagga adeer labaad baa dad iigu xiga soo waxaad garateen maaha waxa aan u baqayaa walaalo caawa haddii tii ilaahay igu timaado iyo haddii waxay la doonayaan igu dhacaanba inantaydan u baqayaa inantaydaas ii ogaada walaalayaalow 8 jir weeye iskuulkeedana waa laga hor istaagay dhibaatadaasaa na gaadhay anigu hooyan ah yacni gabdhaha halkan ku jira way dareemi karaan please for the sake of my child Firi aba Halima adaa ku watay maanto can you tell us like besides you being arrested or lagu soo xiray iyo hantidaada la wareegay anything else that you possibly caused you to fear in lagu dilaayo oo kala lagu subiyo Yeah, I had threats. There are a lot I cannot talk about online. I don't know if you do it. Okay. Maxamed hadda dhaqaale ahaan maadaama shaqadaadii laga hor istaagay guriga aad joogtid financial support ma u baahan tahay caawa saan kugu support gareyn financially because dacwadan way igu adkaatay waa fiican okay marka gabadha maxkamadda waxay u sameynaysaa financial support iyo joojin qof shaqadii ay ka joogsatay xaaladan ku jirta weeye no don't get me wrong I work from no Adam shaqadeeda ama u socota ma iska dayso dollar loo aruurin way waa naag educated ah hadii wax la siinayna tolka bar gidara siinaya iyo dahar cala Saudi dadka madaxda ma ahanay dhig joojin iyo arintaas haday uu weydiiyay daahir uu ka hadlay no it's not necessary waa gartay marka walaal khayr Allah ku siiyo waqti dambana hadda waa joogtaa iska naso bari iyo maqribkii noo tahay aniga follow isoo dhe maadaama criminologist aan ahay lecturer university ahay waxyaalo badan aan rabaa inaan si private kugu hadlo aan kaaga caawiyo arrimahaas insha Allah aadana iyo qor u jeedaan Halima waa iska joogi kartaa let her go stay and relief it's a relief yes follow na wada dheh dadkeena meesha saaran follow baagna dheh manaalay lambarkeeda noo soo dir gabadha Soomaali Maxamed ay 5,000 waxaan idinka doonaynaa gabadha waa well educated waa gabar hooyo dhisan qof ahlu diina ee Soomaaliyeed ee aad u jeedaan ee dulmanaa ee maxaa innocent ah ee la soo ataaga la sarab gareey awood loo sheegtay dumarnimo whatever yani Soomaali Maxamed ay gabadha waa inaan garab istaagnaa loo duceeyaa at least inuu cadaawaha ka fujiyo waxashiin baa la noolnahay awoodda isticmaala
dumarka abiyuusa Soomaali maxameday waa in dadka public la keena sharciga la tiigsadaa oo kaamarooyinka la soo fadhiisiya publicity gabadha keeskeeda laga dhigaa waayo alla kama cabsoodaan Soomaalidu badanaa waxay ka baqaan maxaa la yiraahdaa yaan lagu soo qaban yaan lagu sheegin yaan lagu caayin yaan lagu ceebaynin waa inaynu cambaaraynaa gabadhan lawyer ba un baahan ayadaaba lawyer ma sha Allah the way you conduct yourself Allah yes ma sha Allah lawyer baan helay hadda aad u adag Saleebana ma sha Allah I am extraordinarily happy with him to be honest with you ما شاء الله ما شاء الله ولا ما شاء الله إلهي ku xifdiyo qof intellectual smart waxa tahay ما شاء الله oo articulate oo si fiican maaragtay keeskeeda u sharaxday إلهي khayr ku siiyo xaramka jooga kaaga soo duceynaa amuuraha Ilaahay inuu ku sahlo walwalkii walbahaarka Ilaahay farxad iyo reerana kugu bedelo amuuraha faataha hamar everybody ku akhrina dhamaan shantaas kun meesha ku jirta ha abay magaca Xaliima miyaa lagu yiraahdaa Xaliima soo ku soo celceli ubaxa gestiga ma ku jirtay adige boos gestiga Xaliima أفر فاتحة الله أخري إلهي سبحانه وتعالى مراد كذا إلهي إنه سهل واحد بتكود إلهي إنه كقبته ماشي والولي علايس كهاي والفرحات يرينا إلهي إنه قبدله عدو كذا إلهي إنه كقبته فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن نولا بيا أنا وادك تقوى بالله بي إلهه قبل أمريكا يعاطمات كذا بركة إلهه أمني كذا حفظ إلهه وحي اللي بعساك كقبض إلهه أسهل المراد كذا يا رب صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنه سدحية إنه إلهي عداوها كفوجي ربي أو أذين كان ذي كفوجي دمانتين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تي أفرات فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاتحة صلي النبي كتر صلي النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كل لا إله إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب القبر ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني مسني يضر وأنت أرحم الراحمين من يجيب المضر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله عقدني يا مقيم يؤتي بها الله إن الله لطيف الخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين كبرنا إلهي عداوها كفجي كبرنا إلهي عداوها كفجي إن الله الوالدين اللهم اهد الشباب المسلمين ما شحكم اللي واقف هذا المحسنة أي نبري aad iyo aad umahadsantihiin weedin ku nafisay walaalahayga Soomaaliyeed aad iyo aad umahadsantihiin insha Allah idinkana Allah idin asturo Allah idin daryeelo yalla ma baxdo soo joogtaa Allah ku xifdiyo waxa weey Turkigi waxa la xiray 9 meega fasaxa meega madaxa loo daayo beel hiiraan iyo yaaska meega fasaxa Hi Bella, are you ready? Wow, diyaar waa soo sheegteenba ay daarku si salaama qeera ku rajay hurdada waxa maxaa ka wadaa wari meeg fasaxa meeg caytina dagaala war adiga qofka ku soo dalbato tiri ifrisi waxa ka hadlaysaa aqaan waxa sheegay aqaan hadalka dhibaan ka qaldanaday bismillahir rahmanir rahim daaro yasmin yasmin ana ku qaadana haye maxamed daawud thank you fiiri yasmin you need jaisa or you don't need jaisa go'aan aan laga helo أنا مكتوب واشم دايرو أنا هل دعوة أقبع محمد داود سبورة ديسة قرعلي ضد نو صوص راي وما يقطع شيء قادر بيسا يا محاني ما يقادم وين
sheekh aadan oo adig kula dagaali kara culimada digrina culimana caabud laga bilaabo digrina laga badina aniga qofta aan kala baxno idinka meel kasta ilaasiin aniga iyo dhageysta yaasmin saxaynimo ila hadal hay adeer macaan he ها ياسمين انت هذا الله اللي نقول عيال قلب هلكان ما يقان ديار وعا والكان ديار واحد حوغا اسكو هايسنا هاي haddaan lagu heli karin daqiiqad kastana meega u fariisanaysaa bay leeyihiin diyaar waa markaa xishoon wax badan ka xishoon sheega ana waa lagu socon karaa leeyahay misdifaaci kale ma maqlaysaa aniga caayta ma aqaan daahiro ya beel hadda ii baahan tahay beledkaana isla joognaa meelahaas ay ugu balansata laakiin ana caay iyo waxa siiyaan wallahi shaqo kuma dhig ayaan dhawatiyaa lagu balamay meesha oo harada biyaha leh yaa lagu balamay waa la isku tuuro ma aqaan suka soo laabatay beelo ayada dalbatay ana hadda beelo igu balmina qof kale ii balmiswaas islaantan soo la iga dheer ma ii balmis daahir qofkii lagu balamay legta iyo ahay